السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سيتيهين سو دوادا maanta meeshan waxaan isla arkaynaa martiqaad aan qabay iyo sidoo ku bilowdo ku dhamaaday marka hala soo dhawaado video meel dheer hala gaarsiiyo. meeshaan magaalada soo aaday waxaan soo raadsaday hilib. meeshaan waxaan rabay inaan ka qaato malaay iyo digaag iyo hilib ari, marka wixii dhan waan soo qaatay. kadib meeshaan soo aaday qudaar yar yar aan u baahnaa maadaama bishii 20 iyo wax iska mareyso wax walba ma yaalaan. marka meeshaan adeeg yar qaadanayay halkaana marka waxaan soo qaatay salar, barbarooniga kalarka daaniyo, basal, wax aan ka soo tagay malahan aan ku iri kaarot, barandho, waxaan soo qaatay 200 camal marka waa kana hadadaan anigoo la isoo dhameynayo wixii dhan wiilka isoo xirxiraya. waxaan rabaa marka meeshaan in xamaali intaan u dhiibo inaan magaalada sii galo waxyaalihii kale iga dhidhinaa aan qaato meesha ka waaye. kadib halkaana imaaday liin bambeelo iyo beetroot iyo waxaa u baahnaa caananaas hal xabe sidoo kale avocado dhowr xabe ahna waa u baahnaa. marka ninka xamaaliga marka alaabta u dhiibay halkaana intii kale iga maqnad ka soo gatay. kadib meeshaana imaaday waaba iska sii habeen markaan maqrib waay biri camal martiqaad ka qabay. marka meesha waxaan ka rabay garaafihiina waan kasoo helay. kadib meeshaana imaaday waxaan uga baahnaa midkaas diyaarsan oo maxaa la dhahaa ceeshka miya diyaarsan oo raabka oo shawarmi waxaas rabay inaan ku hagaajiyo awal inaan karsadaan rabay ceeshka, laakiin haddana waxaan dhahay maadaama shaqo badan ku taalo ama kasoo bixi weydaa marka sidii bayna noqotay kan baa isticmaalay. kadib subaxii xiga waa kana anuu aroortii jikada soo galay. meeshaana waxaan soo diyaarsanayaa hilib ari 2 kiilo waaye. waa aragtan siduu u egyahay maasha Allah. ani hilib ariga kan noocan ahaan jecelahay sidaan inuu u waaweyn yahuuna yaryareen. marka xilligan adiga waa 2 saac bar camal waxaan leeyahay dabka aad sii saaratid intaad barandhada iyo waxyaalaha kale sii diyaarsanaysid hilibkana ha ku karo. marka sidaan quruxda badan u ahaa hilibka wiilashaasaan ka gataa jaamkay degan yihiin hilibkooda aad u fiican yahay aad u nadiif u yahay. hilib ariga wili laguma gaar maasha Allah sidaas arkaysaan waay lafa iyo baruur iyo waxyaalahaas hadaan rabin lagaagama daraayo. marka sidaana u soo diyaarsaday kadib meeshaan rabaa inaan biyo ku soo shubo. biyihii markaan ku soo shubo meeshaan waxaan isku soo daray kabsar iyo nacnaac iyo toon iyo sanjabiil iyo basal aan isku soo shiiday waan ku soo shubay. sidaas aan rabaa dabka inaan u soo saaro. kadib meeshaan waxaa igu jira sidoo kale digaag lagu waaweynay lagu yar oo 2 kiilo waxaan rabaa inaan ka soo sameeyo wixii dhan caraf inta ku soo daraan rabaa inaan saacado meel dhigo. xala fiicnad inaan sii geliyo laakiin waa daalana ma dhigi karin anoo magaalada ka imaaday. marka waa isla meesha waa iska 2 saac. meeshaana marka carafti dhan iyo waxaan ku soo daray wax yar oo kalar oo gaduud suu kalar qurxan u noqdo. soya sauce aan ku soo daray. kadib sanjabiishii toontii aan ku darayay hilibka qaar aan ka reebtaan ku soo daray. kaal iska argan ku cusbo yar aan ku soo daray. wixii dhan aan rabaa inay is soo dhax galaan oo sidaan quruxda badan ku soo baxaan maasha Allah. kadib waa ku soo dareynaa bacaan ku soo xireynaa. waxaan adiga ovenka gelinaa inaan ovenka geliyaan rabaa adiga 3 saacadood kadib maadaama digaaga waqti badan qaadanaynin 5 saac camal aan gelinaya. hadadaana waa 2 saac. marka waxaan arkay inaan cusbo ku darin oo cusbada ka hilmaamay. waa kana marka hadda anigoo cusbadii ku soo daraayo sidaan rabo soo noqdo asaga dhan waa isjiidayaan ku maasha Allah. wax yar oo saliid ahna waan ku soo daray. kadib hadda waa kana hilibkiya soo qaadeynaa. waa kana anoo hadda wixii dhan ku soo daray maasha Allah. marka waxaan rabaa wixii dhan intaan ku soo daro inaan is dhex geliyo oo si fiican isku dhex geliyo xoogaha yaraan reebanaya. waxaan leeyahay marka is dhex geliso hadaa aragtid wili inuu u sii baahan yahay ku darsid hadaa aragtid inuu u baahneenna dhib ma lahan. inta kalena wax kale ku isticmaali doonta maadaama boneless hilibka jiirko digaaga uu isii dhiman yahoon ku darsan rabo aan shawarmaha ka hagaajisan rabo laakiin waa wada isticmaalay. waxaan arkay wili inuu ku yar yahay maadaama uu hilibka 2 kiilo ahaa. marka waa kana anigoo hadda si fiican isku soo dhaxgeliyo baaquligan ku soo shubay shug isku sii waay. hadda waa kana marka sidaan diyaar ku soo yahay. waxa sameynaya marka bacaan ku soo xiraaya inta bacdi waxa sii diyaarsanayna daboonan sii saareyna halkaas iska sii dhigayna. maxaa kaloo xigo waa isla arkeena. waxaa kaloo xiga meeshaan digaagi kale oo jiirta ahaan rabay inaan ka sameysto shawarmaha inaan ka sameeyo asagana sidoo kale waxaan rabaa inaan caraftiisii wixii soo dhan inta ku daro ameen la sii dhigo. meeshan sidoo kale waxaa ii soo qoysan bariiskan maxaa la dhahaa asagana biyaan la soo dhigay
ani waxaa ahayd dadka bariiska biyo la dhigo waqti dheer adiga saacadii bar 2 saacadood 3 saacadood hadhow biyo yar aa ku daraysa markaa karinaysid maasha Allah wuu kugu soo baxaya oo furfur ah marka waa kana haddana anigoo intaan gloves u soo gashtay isa soo dhaxgelinayo oo si fiican isku soo dhaxgelinayo soya sauce kuma soo darin caraf iyo daaniyo bis aan ku soo daray asagana sidoo kale waa soo dabooleynaa meelan soo dhigayaa shaqada waxaan ku irsaaka waa badan tahay kadib waa kana haddana anoo bariiska dabka soo saartay chipsigi soo karsanay hadda waqtigan wixii ugu badnaa waan soo sameystay shawarmi waan soo xirxirtay hilibka way ii karay basbaashiniga wakaas hilibka marka waxaan rabaa inaan soo hagaajiyo kadib meeshaana maxaa la dhahaa gabadhii caawinaysa imaaday maadaama aan shaqada badneed waxaan ku dhahay roogan waa nadiif laakiin ila laab ii xaree midka kale cad ii soo dhig markii hadhow waa kana asagoo laga soo furay bacdiisi hadhow waan ku soo cishan doonaa marka midkeyga kale kana hadda sii dhiganeynaa in muddo ah oo maalintaas ah marka waa kana haddadaan ayadoo soo fidinayso si fiican usoo dhigayso kan kalena kan meesha laga soo bixiyaa la gelinaya meel gooni ahoo roogyada aan gashto meeshaan quraankeena noo soo shidan yahay waa iska subax marka waa kana alxamdulillah sidaanu ku soo baxay marka waxaan rabaa hadda fadhiga inaan soo uumiyo maadaama la soo tirtir darbiyadiisi asagoo dhan oo la soo hagaajiyo inaan uunsi ku soo xiro hadhow aan wax yar daaqadaha u furo markii oo cuntada iyo waxaas aan soo karsado marka waa kana haddadaan anoo uunsi ku soo shidaayo 10 uunsi aan isku soo daray maanta sabti bay ahayd markaan videogan duubay shalay ahayd ilmo ma joogin marka waxaan ku dhahay uunsi nooc kasta iyo cuud kasta guriga yaala isku soo daray waa jaanis ma maqashay adi jaanis waay marka haddadaan waa kana qadadeena saana diyaar ku soo ahayd maasha Allah salarkii shawarmihii cabitaanadii inkastoo waxyaalo badan ay dhinaayeen waa iska dareemi kartaan wax kasta lama duubi karo waqtigan marka intii aan ka gaaray baa idin soo duubay sidaan u ahaa marka qof walba markuu cuntadii saxan ku soo riday waa kana saxankii aan tusaaya shawarmihii hilib arigii digaagii bariiskii kaal iska aragaan ku dhigay maasha Allah sidaas quruxda badan ku soo baxay basbaashiniga dhinacan ka soo saaray intii heysata Ilaahay ha u barakeeyo intaa haysanin Ilaahay intaani in ka badan ha siiyo insha Allah marka qadadeena sidaan ay u ekeed marka hadii fadhi ma yaalo markii martida tagaday la soo kala dhamaaday ilmihii la seexiyay meeshaan jikada soo galay weelasha amaanta isticmaalaa rabaa inaan meeshooda ku ceshto sababtoo ah haddii aan sii dhigo shaqo dheer ay ugu sii noqonaysaa waa daalanahay laakiin hadda waxaa ii si fiican inaan weelasha iska sii dhaqdo oo iska sii xareeyo oo biri haddaan soo kacaydo shaqo ii oolin aan soo kacso maaha marka waa kuwaana weelasha anoo soo dhaqdhaqaayo garaafahan aan isticmaalaa iyo midkaas kale meesha saaran waa kan aan shala soo gaday labadoodaba dhala ma ahan waxaa waaye plastic camal waaye sababtoo weelasha dhala garaafooyinka dhalada aad anaga u jijibinaa marka waxaan arkay kuwan ayagoo dhala ahna way jiraan hadda marka kor laga arkana saasi u qurxan yihiin dhulka haduu ku dhacan waxba kaama gaarayaan marka kuwaana hadda isticmaalaa hadda ku dhala ahaaba iga jabo waxaa markaan kan soo gadaya meesha weelasha jooga midkaana arkay asagoo dhala ahan qabin waxaan irmaa asagana saan aha la keeno jabin ha keena kana ay anfacaya maxaa la dhahaa garaafa dhalihii anima isfahmeynay marka waa kana sidaanay kusoo baxeen saxamihii rabaa ayagana inaan soo tirtiro marka waxaan rabaa weelasha meel gooni ahaan geliyaa meeshooda goonida ahaa inaan iska soo geliyo oon shaqada iska soo fududeeyo marka waa kana anoo soo dhaqaay marka waxaan rajeynayaa videoga inaa meel dheer gaarsiisaan like-ta noogu dadaashaan insha Allah waaba noogu dadaashaan Ilaahay ha idin sharfe dadka cusub oo nagu soo biiro waxaan leeyahay soo dhawaada dadkii hore noola joogana waa sharfintihiin Ilaahay ha idin karaameeyo dadka kaloona daawado subscribe-ka noo ahayna waxaan leeyahay subscribe yana loo noqdo insha Allah nagu soo biiro naguma khasaareysaane sidoo kale maxaa la dhahaa videogana meel dheer gaarsiiya commentigana noogu soo dadaala insha Allah ra'yigiina inaan arkaan rabaa iyo waxaa aaminsantihiin marka waa kana hadda weelasha inta u badneed waan soo dhameynayaa wax ii haraaba iska soo yar maadaama aan soo dhaqay waxaan rabaa inaan sii tirtiro maadaama meesha aad gelinaysid ay khaanad tahay waxaa waaye weelasha khaanada markaa gelisid ayagoo qoyan maxaa la dhahaa khaanadana ay alwaax iyo waxaas tahay dhib badanaa ka imaana adigana weelasha ka hadlaabaan khaanada xatay rabta cayaana ku dhalanayo marka faa'iidada markasta waxay ku jirtaa weelka intaadan iska xareynin inaa iska sii dhaqdid oo meeshiisa iska sii gelisid oo iska sii tirtirtid aan ka wadaa marka waa kana haddadaan waxaan hubinayaa inuu hal weel oo qoyan oo meesha iigu jirin marka sidaana kusoo dhameynayaa baaquligan kii waxaa waaye salarka iigu jiray baaquligan saa u jeclahe
waxaa haystaa asagoo u eg ku oven kala geliyo laba dheg lama aqaana ugu aragteen waa isticmaala marmara u maleynaya ayuu ku jira youtube-ka saaida u jeclaa isagiisa u ilaalsado laba sano kala duwanaan galay baan gaday waan isku design marka kadib waa kuwana weelashii bariiska iyo hilibkii waxaasaan ku guranay hotpotyadii ayagana waa soo tirtirayaa maxaaba soo harabo labada taraaya soo hartay inaan soo tirtiro ayagana marka sidaas quruxda badan ay kusoo baxeen maasha allah sidaas waaye kii kalena waa kana asagana waan soo tirtirayaa kaal iska arag way hotpotyadan markasta ma isticmaala ayagana marmar iyo dhifan isticmaala adiga ku dhawaad hadda 3 sano xoogaha waa haystaa hadayba 4 sano ahayn aadan u ilaalsada marka soo gadanaya sidaan ku soo gaday 3 xabay ahaayeen mid baana calaf u lahayn saasta u soo gada asagoo dhowr bilood yaaluu jabay labadaana ii soo hartay marka khayr waxay ahayd kii iga jabay wuxuu ahaa midkii oo yariiska ahaa labada yar waaweyn ii soo rooneed ma fahanteen waa kana weelasha marka hadda midkaan dambe ma aragtiin dhalaal loo maleynaya daboolahoodina way qurqurxan yihiin kaal iska arag waaye marka sidaas waaye hadda midkaan kalo asagana soo tirtirayaa waa isku soo dhamaatay hawsha maxaa haray allah musta'aan waa soo dhameeyay marka hadda waxaan sameynayaa meesha koraan iskula soo gureyna hadaan ka gaarno insha Allah marka sidaas waaye maxaa isku ognay marka videoga meel dheer hala gaarsiiyo comment like subscribe share dhammaan nagu cimaamada insha Allah waaba noogu dadaashaane noogu sii dadaala haduu ilaahay idmo marka waa kana maalinteena sidaanay ahayd sidaan quruxda badan ay kusoo dhamaatay kadib waa kan weelashi waa iska soo kala xareynay jikadii waa kana maasha Allah sidaanay nadiif u soo noqotay yaab isdhahay maanta jikadana lagu rafto shaqo lagu qabtay qof isdhahay malaha samaha sidaas ay kusoo baxday marka maalinteena iyo martiqaadkeena sidaan uu ahaa waa isku soo nabad laaban doonaa nabadgelyo fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye